السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كسر هذا قيب سين لبعض قال قيب تروح كجا هذا اللي مهمة عائلة هذا حي معدنه وليهن لفهنا إيو قيبتي كانوا حين كوسي هذا اللي إذا قيب كور ريسيرشتو أنو كهذا اللي فيتامين كعدة يسد ومهم سين هاي لفهنا إن نلالنا لفها عائمة كواحد كهذا لنا عنتوي لجهره معدنها أو فرا بدن وحنا مهم إن عنتو qudaar aad u fara badan kuwaas oo muhiim u ah lafaheena waxayna taasina muhiim ugu tahay fiitamiino fara badan ay leeyihiin kuwaas fiitamiinadaasina waxay naga caawiyaan ama inoo ilaaliyaan unugyada ee ay lafuhu ka samaysan yihiin waxaana aad iyaduna muhiim u ah inaad cunto borotiin kugu filan maalintii borootiinkuna lafaheena ayuu muhiim u yahay waana qaybta ugu badan uu ka kooban yahay ee lafta ka kooban tahay waa borotiin 3 meelood meel ahaanba ah borotiina iyada cunto ay ku badan tahay macdano ay ku badan yihiin taas oo ayaduna ka caawinaysa in laftaadi adkaato handeel macdanuhu laftaadu ay ku adag tahay ay ku badan yihiin cuntooyinka aad cuntaa macdanahaasi waxay ka caawinayaan laf adag yeelato waana laftaadi nafaqaysan oo adag oo aan horu jabin ay noqoto hadii jeer marka qofku gabowgo kale ama xilliga la gabowgo kale hoos u dhacaan macdanihi laakiin waxa muhiim ah inaad hadana helin cuntooyinka fara badan inaad qaadato kiniino kaabe ahaan ku noqda iyo inaad talaabada kale fiitamiinka cadceed oo kale kaasina aad buu qayb qaataa lafaha iyo caafimaadkooda waxa aad muhiim u ah si aad u hesho laf caafimaad qabta iyo inaad samayso jimicsigaasina wuxuu muhiim u yahay inuu jirkaagu uu ilaaliyo miisaankii qofka hadduu miisaankiisu aad u yar yahay si fudud ayuu u jabi karaa lafihii nafaqa macdanihii iyo wixii oo dhan baa hoos u dhacaya wayna fududahay inuu si yar u jabo hadduu qofka miisaankiisu aad u weyn yahay uu cayinan yahay ama aad u buuran yahay oo kalena taasina waxay sababaysaa inuu qofkii si yar oo fudud u jabi karo sida miskahoo kale ama gacmahoo kale meelo badan oo u fudud inuu qofku ka jabo marka waxaana muhiim inaad jimicsiga samayso si aad u ilaaliso lafahaaga caafimaadkooda imanka waxaan idin tusayaa cuntooyinka ay ku saabsan yihiin aad looga helo imanka cuntooyinkan waxa weeye inaad jikani waxa weeye tusaale ahaan oo kale waa inuu noqdaa cuntada cunaysay qayb qudaartiya iyo qayb borotiin oo kale iyo qayb waxyaabaha baarka oo kale iyo qaybta midhaha oo kale marka waxyaabahan oo dhan waxa weeye waxa aad iyo aad muhiim u tahay inaad cunto dheelitiran oo nafaqaysan cunto taas ayaana ah ugu muhiimsan lafahaaga waxaan kale oo tusayaa qaybta ay cuntooyinkana waa cuntooyinka ugu badan tahay macdanaha tusaale intan waxaan tusaale soo qaatay macdanihii calciumka oo kale waa waxyaabihii cagaarnaa oo dhan iyo waxyaabihii balka lahaay oo kale cuntooyinka balkana aad bay ugu fara badan yihiin oo kale wixii loosaskii oo kale iyo wixii midhaha ahaa ukuntii oo kale kalluunkii oo kale waxyaabahaasina waxa weeye waxyaabaha ugu badan ee laga helo macdantana waa ta ugu badan ee laga helo jirkeena qaybta lafaha boqolkiiba 48 meelahaas ayay tahay waana macdanaha ugu badan aad iyo aad muhiim way u tahay marka daawade waxa muhiim inaad ilaaliso caafimaadka lafahaaga aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.